عبد الله حسين إمام وعايز ترول وهو قامية كمذا هو قامياش الصومالي لان مكون ما يدلن ويسودون ترستي هل جنبي صومرتي تاريخ مال مكل الدوام بي صومال لان صومرتي عبد الله الربر برو يرى صومال لان با وحيوجين إن هيانكا يهل ذا كل الدوانا صومال لان صوق الشيء أنا وهين نندحذك قصو بودي ويهي نندورر كذياتك يا مالمه هذه هلجن كي دلكن أباهنا رج ولينته معناته دلكن أباهنا رج نفته هراي هي بالذي صفق هراي سكاني جي سياسي هالجمي أيو عبد الله حسين إمام وعايز كم ذي هاي هدان سمدي ستبوا قول نقضاء عبد الله هالجن كا هوله يجوا وينا يكجلي وحن لا نهاي وحن ما هذا لعبد الله يو إلى هذه يهل جميال كلا أو بدن إذن كسماي أنتوا إذن كسو سما تبحيه وحي سيما دعي وحي هلاك دعي الله وحن ما هذا إذن كسماي دلكيني أو حرة أو قولي ستاقيسي يهم الذي أولهابا الدور كعيارتين إلى هاسا مهضلة أو أين مهض نقينا دمانتين وحا مهضلة مركي سومالان دلتي هلقن كيدي بعد قوب كيدي يددالده دو دمادين عبد الله حسين إمام وعيسو حكم النقضي دادكي سالكا ودقاي نظام كدولة دمية سومالان هوستا كسو بلاوي هولي يقول ريو قرقانو قبتي سينو سولا فهمنا عبد الله واكما عبد الله وحا وكامل اها مركي سوهري هلقنكا تليه قيبت كوبي صدنات بوها ee markii berbere la soo galeeyay jidgoynta kaga jiray jidgoynta qaabilsanaa geedka dheenta isla markaana hawlgalkiisu ku jihaysnaa in ciidanka berbere xoreynayo berbere qabsanaya oo culayska hargeysa kaga imanaya iyo culayska laamida u soo raacaya ee gaasaskii ugu cuslaa dawladii faqash inay isaga iyo halgamayaashii SNM ay dhabarka u dhigtaan oo halgankeeda ka midha dhaliyaan aad baan runtii ugu mahadnaqayna saaka xusuustu waxa ay markaanu geedka dheenta mareynay inuu Cabdilaahi istaagay oo si dareen loo khushuuc leh uga hadlay isagoo ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland fariintii uu diray ahayd mid dareen xambaarsan oo kula dardaarmay inay ilaashadaan aanu ilaashana dhamaanteen nabadeena wadajirkeena iyo dawladnimadeena sida adag in lagu soo gashay hadduu Cabdilaahi halkan ka door ku lahaa wuxuu ka mid noqday asaasayaashii ciidanka qaranka saraakiishii talada ka qabatay abaanduulkii ciidanka qaranku noqday Cabdilaahi hagaasimo guud buu ka noqday wasaaradda hawlaha guud wasaaradda cadaaladda ayuu wasiir ka noqday wasaaradda gaashaandhigga ayuu haddana ka noqday wasiir wasaaradda dib u dejinta oo shaqadeeda ugu weyn ahayd inay dadkii dalka ka barakacay ay dib u soo celisay dib u dejin samayso ayuu wasiir waxaan leenahay ilaaha kugu simay adig iyo rag fara badan oo halgamay waxa Cabdilaahi oo maanta halkan ummadaada ku hor keenay inay ummadaadu ku marxaati furi doonto oo ay ku hiilin doonto oo ay ku gacan qaban doonto sidii halgamayaal horeba ay u gacan qabteen oo Axmed Silaaya kamid ahaa oo Muuse Biix Cabdi kamid ahaa oo ay kamid ahaayeen Cabdiraxmaan Cali kamid ahaa oo ay kamid ahaayeen madaxweynayaashii kala dambeeyay Soomaaliland sidii loo doortay si lamida inay ummadaadu intay ururkaas soo dhaqaajeen xisbi ku keeni doonaan ayaan kalsooni weyn ku qabaa ilaaha kugu simay maalintaana ku joojiyay aad u soo tacabtay hawsheedii halgankeeda baad kaalin ku lahayd